shaqaalihii uu dhowaan maayirka magaalada Berbera ka caydhiyay shaqadii ay ka hayeen dawladda hoose ee degmada Berbera oo ahaa in ka badan 30 shaqaale ah ayaa cabasho ka muujiyay qaabka uu shaqada uga eriyay maayirka magaalada Berbera taasi oo ay sheegeen in aanu u marin markii uu shaqadaasi ka eriyay sifa sharciga waxaana arrintan ka dambeysay kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyay si istaba jooga maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera shaqada uga caydhinayay shaqaalaha kala duwan kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya shaqaale cabanaya ayaanu nahay oo lagu xadgudbay xaqoodii hadii Ilaahay ku rumeeyay in la siiyo xaqoodiina aan la siin hanjabaad loogu daray anigu waxaan horta 20 sano ayaan dawladda hoose ka shaqeynay injineeradii sameeyay ee surveyga ka saaray ayaan ahay in waraabtaaga maanta meesha la degan yahay dad ku raacsanay raggii dabaysha dhabarka u dhiganayay ayaanu ahay ka bacdi 30 maayir ayaa igu soo maray 30 ka maayir baan magaalada waan kala shaqeeyo surveygan saar maanta maayir kan na soo maray maayir ka xun nama soo marin Berberana ma soo marin waxaan u tagay waxaan ku war hadii aad afarta shaqaalaan ahay aad neeriday xaqaygii nasiib wuxuu igu yiri xaq allaale xaqan ku hayaa ma jirto cirka soo dum aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Maxamed Xayd dawladda hoose in badan baan ka soo shaqeynayay 17 sano ka shaqeynayay ولدي أنا قماري قدوميين تقصد ما يرنمدا شغالة ده فرق هو سكرة وسائل الشغالة شغالة وحن شيء ونو بيصير بقول يلا باطنية صدق شغالة إنه نقولي هري عدين تدوتها صدق شربنا نقولي ورقدها ونقول ور إسي المحاي تي حقيقة دمر هدادي يردي يا حق ما يرد مالها يقصوا عين يقول وتورط كل عرتي إن مساجكي الدنيا لما أرك بيت إلهي ولا عنه وطا وجوري إلهي ما ير عبد الله محمد عرب ما يركي هراء وبحيي دنك وتبيع يروح المساجد دي من عادها لقول الصحافة لا ينور هنا إن كان يمكن شوقي ما يركع وعناي وحلوات القاضي كريم ما هم مساجد جوري إلهي ولا عناي وكو وحي حافظوا عضين يسا مقرن يسا وأيدت كاش غالها وحويا ولا ليال waxaanu idin sheegaynaa waa maayirkii koobaad ee cunay beertii dawladda ee batalaale ee sideedaa maayir ay dhirta ku beereen ay ka shaqeynayeen ninka muwaadinka ay halaasi la yiraahdo mashruuca ku qaatay oo maal galiyay maayir Cabdishakuur baa cunay anagu maanta maayir baa oran mayne ayaa cunay nin ganacsadaaba laga yeeyay waan idin tusaynaa waxaanu idin sheegaynaa 40 balood oo danguud loogu talagalay xaafadda la yiraahdo waraabowtaaga guryaha dawladda hoose ee maayirkii hore u dhisay ku hareeraysan 40 balood ayuu kaga tagay maayir Cabdalle 40 balood laba nin xoog ayaa dhisoon inta soo nadeerka ka socda 38 kale isaga iibsaday waxna haysta oo seestay wax loo dul qaadan karay maaha walaalayaal waxa inta dheer kawaankii Berbera ee maaliyadeedu isaga soo martay waa la cunay waxaanu idin sheegaynaa maanta Berbera waxa ka socda waxaan loo dul qaadan waxaan xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Cabdi Awdaahir wasiirka arrimaha gudaha علي محمد ورن عدي waxaanu ogeysiinaa 124 shaqaale oo dalnaya oo hadli doonaan inuu tusi doono ayaa bidooni sabab uu ku dareeriyay laba jeer geesta kala gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid ee gobolka Saaxil Marwaroode Axmed Yaasiin ayaa ka hadashay shaqaalahaasi laga caydhiyay shaqadii ay ka hayeen dawladda hoose ee degmada Berbera u qabanay hadii aan ahay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka gobolka Saaxil xabashooyin bariyahanba ka soo baxaya golaha deegaanka gaar ahaan maayirka horta waxa aan dadweynaha Soomaaliland u sheegaynaa dibad iyo gudaba maayirka ka soo baxay Berbera waa maayir u cid buu ka soo baxay waana u cid waxa weeyaan maayirkaasi wax alaaliyo wuxuu dib iyo dheef geysto waa la leeyahay xisbiga oo cid gaar ahaan xafiiska gobolka Saaxil maanta muddo badan iminka waxa ka soo yeedhisay cabashooyin badan oo ay dadku marka ay noo yimaadaan ka xafiis ahaan ay leeyihiin ninkii idinku aan ugu soo saarteen waxa dhacday caynkan wax badan oo ay umada reer Berbera ay ka warhayaan iyo qaar kale oo meelaha kala joogaaba wixii horta maayirkii aan keenay anagu cid ahaan ka soo baxay Ilaahay baa keenay ka soo baxay xisbigayaga ee anaga nagu abtirsanay xisbi ahaan wixii dhibaato iyo cabasho laga keenay ee maanta la arkayo iyo qaylada dhacaysa waxaan ka raali gelinaynaa horta
cid kasta oo ay kaga timi dhibaatadaasi golihii deegaanka iyo khaas ahaan maayirkii uu cid ka soo baxay waxa maanta jooga in shaqaale masaakiina oo 20 sanadood ka shaqeynayay meesha iyo ka badan iyo 30 sanadoodba maanta ay qaynayaan oo dibadda looga saaray sabab looga saarayna aanay jirin dawladda hoose sideedaba waxa weeyaan waa belediye deegaanka leh in dadka lagu ilaaliyo waa in dadka lagu laayo maaha waa in dadkii soo doortay ilaaliso bulshadii soo dooratay waa in xanaaniso isku soo wada duuba waxa muddooyinkii ugu dambeeyay shaqada laga caydinayay shaqaalaha kala duwan ee ka hawlgeli jiray dawladda hoose ee degmada Berbera geesta kale waxa ay arintani ka hor imanaysaa xilli shaqaale la'aan baahsan ay ka jirto dalka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ah ee Royal magaalada Berbera mareeyaha haamaha shidaalka